Qaybtan waxay ka bilaabataa dagaal aad u xun oo dhex maraya Kong West iyo Mark. Isla markii ay gacan isweydaarsadeen, daaqado ayaa dilaacay, dhismayaal badanna waa dumay. Kong West si fudud ayuu u garaacaa Mark, wuxuuna u sheegaa in Viltrumite kale ay u sheegi doonaan sida weyn ee boqortooyada Viltrumite u tahay, laakiin uusan isagu sidaas u imaan. Isagu wuxuu u yimid dagaal, wuu ka helaa dhiigga iyo xanuunka. Markii uu weli hadlayay, Mark wuxuu ku dhuftaa feer kale, wuxuuna u adeegsadaa jirkiisa si uu dhismayaal u dumiyo. Kong West wuu dhoola caddeeyaa intuu feeraha la dhagan yahay. Mark wuxuu kor ugu tuuraa cirka oo ilaa bannaanka sare ayuu ku dhuftaa. Nasiib darro, Kong West wuxuu afkiisa ka sameeyaa baloon dhiig ah oo uu u beddelo calaamad jacayl ah, waali aan caadi ahayn. Markaas kadib, Kong West wuxuu si xawaare sare leh ugu soo celiyaa dhulka, wuxuuna ku dhuftaa Mark feer ka maskax jeexa. Debbie iyo Oliver waxay daawanayaan iyagoo naxaya. Oliver wuu rabaa inuu caawiyo Mark, balse Debbie waxay ku talinaysaa in marka la dagaalamayo Kong West uu dhaqdhaqaaqo oo uusan u dhowaanin. Mark wuxuu miyir beelaa feertaas darteed. Kong West wuxuu kor uga soo degaa dhulka oo ku dhuftaa feer kale, taasoo dhulgariir sababtay. Mark wuxuu noqdaa mid aan isxakamayn karin. Wuxuu bilaabaa inuu baryo Kong West si uu u joojiyo, balse Kong West wuu diidaa, wuxuu ku raaxaysanayaa dagaalka. Oliver ayaa soo gala dagaalka, wuxuuna ku dhuftaa feer si uu walaalkiis u badbaadiyo, balse Kong West wuu ku dhacaa, wuxuuna qabtaa lugta. Mark ayaa ku soo boodaa si uu u badbaadiyo. Labadooduba waxay isku dayaan inay iska kaashadaan, laakiin Kong West wuxuu u sheegaa in Mark weli uusan muujin xooggiisa dhabta ah. Mark wuu xanuunsan yahay, laakiin wuxuu bilaabaa inuu feero degdeg ah ku garaaco Kong West. Isagu ma dagaalamo, wuu iska daawanayaa. Markii dambe wuu ku daalaa, wuxuuna leeyahay, haddii tan tahay awooddaada, dagaalkani si xun buu u dhammaan doonaa. Cecil, taliyaha ciidamada, wuu argagaxsan yahay sababtoo ah Kong West waa kan ugu xoogga badan ee uu abid arkay. Wuxuu la hadlayaa Sinclair oo ah saynisyahanka samaynaya ciidamo robot ah. Sinclair wuxuu sheegayaa inay 2 toddobaad u baahan yihiin si ay u dhammaystirmaan. Dhanka isbitaalka, waalidka Eve waxay daawanayaan dagaalka. Eve waxay soo kacdaa, waxayna aragtaa TV-ga oo muujinaya sida Mark loogu garaacayo si xun. Inkastoo lugteedu dhaawacantay, waxay samaysataa lug cusub iyadoo adeegsanaysa awooddeeda, waxayna rabtaa inay caawiso Mark. Kong West wuxuu sheegaa inuu u yimid dhulka sababtoo ah waa sahal inuu qabsado, wuxuuna sheegayaa in Nolan, aabbaha Mark, la dilay. Oliver mar kale ayaa isku dayaya inuu caawiyo, balse Kong West wuxuu ku dhuftaa feer afka ka dilaaca. Wuxuu bilaabaa inuu kala jebiyo, laakiin Mark ayaa joojiya inkastoo uu si xun u dhaawacmay. Cecil wuxuu la imaanayaa kooxtiisa si loo daweeyo Oliver. Dhanka kale, Eve waxay sheegaysaa in ay awood u leedahay inay wax walba beddesho iyadoo ku shaqaynaysa molekularka jirka. Waxay tagtaa xeebta halkaas oo Kong West dadka ku gumaadayo isagoo adeegsanaya wejiga Mark. Eve waxay samaysataa gaashaamo awoodeed, waxayna istaagtaa si ay u dagaalanto. Waxay hawada ka dhigtaa cufan si Kong West uusan u dhaqaaqin. Waxay adeegsanaysaa hubyo ay iskeed u samayso. Inkastoo ay si xooggan ula dagaalanto, Kong West wuxuu gacanta ku jebiyaa gaashaankeeda, wuxuuna caloosha ka jeexaa. Mark ayaa qabta Eve markay dhacdo, isagoo ooyaya. Markaas ayuu xooggiisa oo dhan isugu geeyaa si uu ula dagaalamo. Waxay isku dhufteen feero aad u culus, midkoodna feertii uu tuuray ayaa birta gacanta Kong West jebisay. Markii Kong West isku dayo inuu dilo Mark, wuxuu u sheegayaa in dhammaan Viltrumite-yadu ay ka baqaan, uuna yahay keligii. Laakiin Eve waxay adeegsatay tamar aad u xoog badan si ay u gubto jirkiisa. Inkastoo uu yidhaahdo wuu dilaynaa, Mark wuu caroodaa oo madax ku garaacaa ilaa uu dilo. Mahadsanid daawashadaada. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan ku dhufo like si aad noogu muujiso taageeradaada. Subscribe-tana waa noo muhiim. Mahadsanid.